Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kadhawo muuqaalkan oona sinka tusi doona sida laan ka darsado far cusub applicationka PicsArt. Si unagna applicationka PicsArt meel ka waayana far usa gaaran tusaale ahaan waa qornay markan walaal qorni faron applicationka la kooyaan inta badan ma hano file ama dadka qaniyo inta badan ma marka far cusub salaan ka darsaday iyaga ka tutorial ku sinka tusi doona first sada far yadi sidaas ma imbaase applicationka Chrome mana galaas website la araw dafont galaas website kan website markii sahangal ku dib marka antu isin aragay tan dhan far oodan isticmaal karto applicationka PicsArt laakiin waan ku sii gudbaanay modern ila qorantan ku sii gudbaan main hadii isdaanay inta far ku diisadana tusaalahan fartun ku wata diisnay long shot tan qoranta download ya tabadaas tan hadii diisani markii farta diisadaasona basba ma ko baasan ko obstay hal MB tam go'as marka wala hadii meesayna folderka qoranta download markii farta diisto ku dib fartan takin galaas download disk folderka markii gal ku dib long shot fartuna diisani tan marka ma tabadaas unzip marka file kon copy meelata copy yalata marka copy artmay sida internal storage leta marka may baasan PicsArt qornayti folderkii PicsArt qornayti PicsArt marka aad galay ma ku sii gudbaatay fonts inta ka copy marka copy ku dib applicationka PicsArt sidaas atawal ka qoraan marka baro yana farta una ka darsanayta si shaqayayd marka su'aal ku dib main baase fonts ka seedas calaamadan plus tabadaas meelata my fonts glass marka saad argaytu way tu farteen hata diisadii fartun hata la isin tusin man horay ba far kala diisadii website ka soo kala qorto waa noonti faradan baad saan farteetan digi la yadhan diisidaas